السلام عليكم أصحابتنا قارقة سو دوادا وفلاقينتي عيارها إيا مانتا كلان كمانتا uguweyn ee Champions League la ciyaarayo caawa 10 habeenimo geeska Afrika waa Bayern Munich iyo Barcelona oo u socota inay ka soo argagato ceebihii ka soo gaadhay sanadii ugu dambeeyay sanadkii horena ay ku hadhay halkan oo kale markay labadii lugoodba ka badiyeen 2020 ay u dhiibeen 8-0 midda kale kulanka rikoodhada ugu xidhan waxa weeye Bayern Munich ayaa laga badiyay 30 ka mid ah 32 kulan ee ugu dambeeyay Champions League ay ciyaarto Bayern ugu yaraan 3 gool ka dhalisay 4 kulan ee ugu dambeeyay ay Barcelona ka hortagtay Bayern waxay guuleysay gaadhay 7 ka mid ah 8 kulan ee ugu dambeeyay ay Barcelona ka hortagtay Barcelona waxay soo guuleysay 5 kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan xilli ciyaareedka wayna fiican tahay meesha ay taagan tahay laakiin caawa ma ka badin doonaan kulanka Bayern Munich mar walba sanadii ugu dambeeyay ka awood badnaa dhigeeda Barcelona iyagoo Lionel Messi wata ayay muxuu ahaayay reebayeen laakiin ka soo maanta ay haystaan hubkoodii ugu weynaa Roberto Lewandowski ay ka adeejin doonaan kulanka kale la sugaya caawa ugu xiisaha badan isagana waxaa ka mid ah Liverpool oo ku soo dhaweynaysa Anfield kooxda Ajax Liverpool waxay ka cararaysaa guul daradii ugu xumeyd ee ka soo gaadhay Champions League waxayna ka baqayaan kulankooda labaad in laga badiyo oo ay ku ceeboobaan meesha kadib markii ay kulankii hore ka soo badisay kooxda la yiraahdo Napoli ayna ceeb iyo jiid ay kala kulmeen garoonka inkastoo Liverpool xilli ciyaareedkan qaab ciyaareedkeedu aad isku dhimay anayiin kooxaha ku dhibaatoonaya Premier League oo ay 6 kulan ciyaareen 9 dhibcood urursadeen waxa ugu daran championka ay soo reebtay kooxda la yiraahdo ay ka soo badisay kooxda la yiraahdo Napoli laakiin caawa waxay doonayaan inay ka badiyaan inkastoo ay kooxda Ajax aysan ahayn koox yar ay tahay kooxaha khabiirada ku ah Premier League laakiin inkastoo ay u soo noqdeen Liverpool Alcantara iyo James Milner ay ku soo ciyaar doonaan weerarka waxa ka maqan rag fara badan ay ka mid yihiin Naby Keita iyo Kanuti wan eegi doona caawa Liverpool iyo Jurgen Klopp shaxiisa waxa uu ka bedelo iyo qaabishka uu sameeyo inkastoo Jurgen Klopp bariyahan kooxdiisu ay ka jiiftay ayna ahayd koox aad u liidata saxaafadu ay ku cambaareysay kooxdan in aysan xataa ahayn sidii koox weyn ayna u ciyaarayeen sida caruurta qaab ciyaareedkana waxa lagu أنا محمد صالح وليري قابيشن كيسو آد بوحنيه كلن كوا كلن أدق وحنا خد عدونا طبعاً هبي النمو مركي تهاي جيس كأفريقيا ساعد يوكينا أي تهاي سيداد هبي النمو كلن حيسله مريها اللي تكلم بحدونا أي جيسو أفريقيا بركسو بحضي كسو بديسة كلن كهوري إيو ليفربول وأفريقيا هل لقصو قراعي كلن كهوري iyo garoonka dhexdiisa in cidiyaha lagu dagaalamo inuu eegi doona ciyaartaas inuu wada joogo Ole Gunnar Solskjaer tababarihii hore Manchester United ayaa dib ugu soo laabtay in uu maamulo kooxdaasi waa kooxda uu maamulay tababarihii hore Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa dib ugu soo laabtay garoomada waxaana uu maamulay ciyaartiisii ugu horeysay tan iyo markii ay Red Devils shaqada ka cayrisay bishii November ee sanadkii hore markaasoo lagu bedelay Ralf Rangnick oo isaguna dhowr bilood hal kaliya ku sii nagaaday shaqada waxaana bedelay Erik ten Hag Ole Gunnar Solskjaer 3 sanadood oo macallin u ahaa Manchester United ay dhamaatay bishii November oo la caydiyay markii ay Liverpool si xun ugu karbaashtay Old Trafford hase yeeshee muddo uu dibadda ka joogay garoomada waxa uu dib ugu soo laabtay tababarnimada 49 jirkan waqtigiisii uu ciyaarayay Manchester United kula soo guuleystay 6 xoryaal oo Premier League ah iyo hal Champions League ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay shaqada tababarnimo isagoo toddobaadkii 2 ama 3 jeer la leeyahay kooxda da'yarta ee Kristiansson oo uu ciyaaro wiilkiisa Elijah sida uu sheegay Tilinis Kraft Solskjaer ayaa qoyskiisa waqti la qaadanayay ayaa go'aansan in uu leeliyo kooxdan ay ku urursan yihiin ciyaartooyda 14 jireed ah waxaana uu usbuucii tababaraya ugu badnaan 3 maalmood hase yeeshee shaqadan kuma qaadanayo wax mushahar ah toddobaadkan horaantiisa ayuu kulankiisii koowaad ka soo muuqday Ole Gunnar Solskjaer
iyadoo kooxdiisa Kansas ay la ciyaarisay koox yar oo kale. Waynu eegi doonaa tababarahan inta muddada ka maqnaa garoomada, inkastoo kusoo laabanayo kubadda cagta uuna doonayo inuu dib ugu soo laabto tababaranimada. Wuxuuna doonayaa kooxdiisa da'yarta ee wiilkiisu ka tirsan yahay inuu horumariyo inta uu bilaa camalka yahay, uuna ka shaqaysiiyo si uu wadankiisa iyo kooxdiisaba uu ugu mid noqdo ragga saameynta ku leh. Waynu arki doonaa Solskjaer meesha uu ku soo noqdo iyo kooxda soo kacaysan doonta. Kolley kooxo badan way soo raadin doonaan markuu nasashadiisa soo dhammaysto. Degdeg kulamada Champions League ee kooxaha Liverpool, Man City, Chelsea oo go'aan cusub laga soo saaray kadib geeridii boqoradda. Heesta caanka ah ee laga muuqdo garoomada ka hor inta aanay bilaabmin ciyaaraha Champions League ayaa laga joojiyay guud ahaan Britain toddobaadkan, waxaana arrintani saameyneysaa kulanka Liverpool ay garoonkeeda Anfield ku qaabilayso Ajax, Manchester garoonkeeda Etihad Stadium kula ciyaarayso Borussia Dortmund, Chelsea Istanbul kusoo dhaweyn doonto RB Salzburg, iyo sidoo kale Rangers oo Napoli qaabilaysa. Go'aankani ma saameynayo Ingiriiska oo keliya, waxaana uu taabanayaa guud ahaan dalalka ay ka kooban tahay boqortooyada Britain ee England, Scotland, Northern Ireland iyo Wales. Inkastoo labada dambe aanay kooxo ku lahayn Champions League, marka ay ciyaartoydu soo galayaan garoomada waxaa la saari jiray garoonka laga maqli jiray heesta Champions League. Hase yeeshee Salaasada caawa iyo Arbacada habeen dambe ayaanay midkoodna la maqli doonin, waxaana arrintani lagu sheegay in ay tahay ixtiraam iyo loo muujinayo boqoradda UK ee geeriyootay ee Queen Elizabeth II Khamiistii ku dhimatay London. Heesta Champions League uu sameeyay George Friedrich Handel oo calaamad u ahayd tartanka Champions League heerka kooxeed ee Champions League ayaa lagu dhawaaqay in caawa laga joojinayo garoomada Anfield Stadium, Etihad Stadium, Stamford Bridge Stadium iyo Ibrox Stadium. Ma rumaysan kartid Jose Mourinho oo magacaabay kooxdii ugu adkeyd uu ka nuuxsan waayay intii uu tababaraha ahaa. Jose Mourinho waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ugu wanaagsan kubadda cagta 20 sannadood ee ugu dambeeyay, sida weyn uga muuqday isla markaana guulaha badan ka gaadhay. Waxaana uu hantiyay oo uu kooxdiisa kula guuleystay koob 66 koob oo waaweyn. Sanadkii 2013 ayuu dunida u qabsaday markii uu FC Porto awoodeeda hooseysay uu u qaaday UEFA Cup oo ay 3-2 ku garaaceen Celtic, kulan lagu diray waqtigii dheeraad ahaa oo weeraryahanka reer Brazil ee Derlei uu goolka guusha u dhaliyay daqiiqadii 150aad. Guushaas ayaa waxay soo afjartay 16 sannadood oo FC Porto aanay wax koob ah Yurub ka guuleysanin, balse sanadkii xigay ee 2000 ayay haddana ku guuleysteen Champions League oo uu qaaday. Jose Mourinho sidaas ku noqday tababare falsafad cusub oo xamaasad wadata la soo galay fagaarayaasha waaweyn. Tababaraha reer Portugal ayaa la weydiiyay su'aal oo jawaab aan la saadaalin karin ku bixiyay, waxaana uu ka hortagay inuu sheego kooxdii ugu adkeyd intii uu ku jiray shaqada tababarnimada, iyadoo la ogyahay in Real Madrid, Chelsea, Inter Milan, Manchester, Tottenham iyo FC Porto AS Roma uu tababare u soo noqday. Mourinho ayaa san lama filaan u magacaabay koox laga yaabo in aanay dad badan filaynin inuu sheego, maadaama kooxaha ugu waaweyn dunida ay kulamo adag iskaga hor yimaadeen. Hase yeeshee waxa uu kooxdii ugu adkeyd ku nuuxnuuxsaday in ay tahay Celtic sanadkii 2003 ay 3-2 kaga badiyeen. Heshiiska Kylian Mbappe oo la ogaaday inuu ku jiro qodob dhigaya inuu iskaga tagi karo iyo shuruudda kaliya ee ku xiran. Mike 21-keedii ayay ahayd markii uu Kylian Mbappe shaaciyay inuu heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Paris Saint-Germain oo uu sii joogay ilaa 2025. 3 sannadood oo uu saxiixay ayaa u muuqatay in uu albaabada kaga xidhay Real Madrid. Hase yeeshee xaaladdu sidaas ma aha, waxaana uu laacibkan iskaga tagi karayaa Paris ka hor inta aan la gaadhin xilliga uu qandaraaskiisu ku egyahay. Sida uu qoray wargeyska Le Figaro ee ka soo baxa wadanka Faransiiska, Kylian Mbappe ayaa kaliya ciyaari doona PSG 2 xilli ciyaareed oo midkii kood uu durba dhowr bilood marayo, waxaana dhoosha ka qoslaysa Real Madrid oo mar kale ku riyoonaysa in ay bilaash ku qaadato. Qandaraaska Mbappe ayaa dhigaya in 2 sannadood oo uu joogo PSG, laakiin sanadka saddexaad uu yahay dooq ama doorasho oo labada dhinacba sameyn karayaan. Qodobkan inta badan laguma yaqaan in kooxuhu awoodda yeeshaan ayaan hadda sidii ahayn, waxaana heshiiskiisa dhigayaa in Mbappe uu go'aansan karo in uu ka tago PSG oo uu weliba si xor ah uga baxo inta uu bilaabmin sanadka saddexaad.
sanadkan waxaa go-aankiisa isla Kylian Mbappe. Sidaas waxaa yiri qof laga qariyay magaciisa ku dhow la socday heshiiska Mbappe iyo PSG. Laga bilaabo xagaaga sanadka dambe PSG ayaa geli doonta isla xaaladii 2021 Kylian Mbappe oo kale, maadaama Kylian Mbappe awood u leeyahay uu iskaga tago June 2024. Elkob waxa kale oo ay sheegtay inuu ku daray taageerayaasha PSG oo la yaab ku noqotay in ay maqlaan warkan. Erik ten Hag oo ka caawinaya Ajax in ay garaaci lahayd Liverpool. Faahfaahinta waxa uu sameynayo. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Erik ten Hag ayaa ka caawinaya naadigiisa hore Ajax sidii ay u garaaci lahayd Liverpool ay ku soo booqanayso Anfield, waxaana uu siinayaa xirado iyo xogo u sahlaysa kooxda reer Netherlands in ay iska caabiso ay garaaci karto Liverpool. Erik ten Hag oo muddo 3 sanadood iyo badh ah tababare u soo ahaa Ajax ayaa waxa uu dhowaan ay kooxdiisu isku daray in ay 2-1 kaga badiso kulan ka dhacay Old Trafford, halkaas ay ku ciyaarayeen kubado uu soo dejiyay xeeladeeda. Erik ten Hag tababaraha Ajax ayaa yiri waan eegana waana daawanayna kulankii ay wada ciyaarayeen Man United iyo Liverpool, halkaasoo qaabkii ciyaarayeen u gareynay waana garanayna dulduleelada ay ka duleesho kooxda Liverpool. waanu eegi doonaa inkastoo Liverpool ay sanadkan aad u dabacsan tahay ayna tahay koox sidoo hore ka daciifsan. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay diiday 9 xidig oo loo soo bandhigay, kooxahooduna ay ku qasbanayeen inay iibiyaan oo iska diraan. Xidigahana waxa ugu horeeya loo soo bandhigay Memphis Depay oo ka tirsan kooxda Barcelona oo doonaysa in dhaqaalaha iska yareyso iyo culeysyada saaran. In badan waxay raadinaysaa in cid ka qaadata Memphis Depay. Laacibka kale ka tirsan kooxdiisa Desti ee Ameerikaanka isagana way doonaysaa in ay gado ay iibiso, laakiin way u suurtageli weyday inkastoo markii dambe suuqu xidhmay ay qaadatay kooxda AS Milan hal xil ciyaarada amaah. Laacibinta kale loo soo bandhigay waxaa kamid ah Paredes oo PSG ka tirsanaa kuna biiray kooxda Juventus, Andy Roberts oo ka tirsanaa Juventus oo ay xaalkiisa adkaysay hooyadiis markii dambena iskaga baxeen kooxda Manchester United. Waxaa kamid ah Arnautovic oo isna blogna u ciyaara, laakiin ay taageerayaashu qayliyeen intii kooxdan ay saa kaga hadhay. Laacibiin fara badan laacibiinta Borussia Dortmund duwaha uga ciyaara isaguna oo loo soo bandhigay, laakiin ma aysan qaadan. Kooxduna waxay ka doorbiday in ay intaas saxiix ay samaysay Martinez, Malacia, Casemiro, Antonio, Eriksen ay ku qancaan ayna suuqa sidaa kaga baxaan. Laakiin waxaa la eegi doonaa bisha January xidigaha ay soo qaadan doonto. Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga, sii share gareeya, like saara, follow, subscribe intaba.